بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa fariintan inaan u diro qof kastoo waalid ah oo qurbaha ku nool khaasatan gobolka Minnesota iyo imaamyada iyo maamulayaasha maraakista islaamiga ah ee masaajida leh ee dugsiyada leh ee gobolka Minnesota walaalayaalow xilli adag baan ku jirnaa caruurteena iyo communitygeena waxaa ku socda dindoorin qorshaysan oo lacag iyo energy iyo karti ay ka dambeyso annagii dacwadii xaq lahayn ee caruurteena la rabo inaan badbaadsanana waxaad moodaa inaan dayacannahay qorshe bulsho oo dhammaystiran oo midnimo leh oo aragti fog ku salaysan waxaad moodaa inaysan noo muuqanin qayladhaanta waxaan u dirayaa walaalayaal min baabi alkalimatu amaana weedhu waa ammaano hadalka in dadka la baraarujiyana waa laga marmaan waalidiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يلا وأن السلام يا شيخ خير الله السيو إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله أصاره last أفرتي سنة الله صار في وحن كشقيني organization لرجلين يبراروجين وسمين يوارد كسومالي ده وحن أدو فرح سنة هاي الشيخ أو كم ده هذا كبراروجين تاسنا لسمي إنه ما أنت مسج كاز ديلا ده أدرو قف كستو سوماليا waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhibaatadu inaysan ka jirin Minnesota kaliya maanta message-kan aan daafayo waxaan joogaa Nairobi ilmo badan oo loo soo diro in ay diinta bartaan yaa meeshan waxa ay kala kulmaan dibkii laga soo diray mid ka badan ama ha kala kulmaan community-yada diinta ama ha kala kulmaan waxbarashada ama ha kala kulmaan drugs-ka ama ha kala kulmaan siyaabo kala duwan oo ay dhibaatadu soo gaartay adduunka oo dhan waxaan rabaa inaan xasuusiyo taasoo waliba kalifaysa ilmaha qaarkood inay u cararaan safaaradda oo ay hadhowtana ka dhiibaan ama ka bixiyaan warbixin aad u xun ama macallin dugsi ha ahaado ama dadku siday u nool yihiin ha ahaado ama dhammaanteed walaalayaal waxaan u baahanahay dhammaanteen meel kasta oo aan joogno sida shiikhu uu message-ka noogu baraarujiyay dal iyo dibadba inaan u istaagno in aanu ka dagaalano diinteena iyo damiirkeena iyo dabcigeena in la dooriyo oo ay dooriyaan dad ajanda leh dad aysan u kala cadeen wuxuu nin yahay oo hadii nin la weydiiyo aan garan karin hadii naag la weydiiyo aan garan karin waxa ay tahay dad macnahoodu uu yahay in ay loo noolaado sida xooluhu u nool yahay waxa kaliya looga badbaadi karaa in qofku uu fahmo saddex waxyaalood baad ummadu isku bedeshaa number 1 inaad adigu aware tahay inaad adigu damiirkaagii kacsan yahay inaad adigu ogsoon tahay dhibaatadu intay la eg tahay inaad adigu horta qalbi ahaan iyo aqli ahaan diyaar u tahay number 2 adoon qof sugin inta aad qaban karto oo karaankaaga inaad awoodo inaad qabato number 3 inaad isla hesho dad like minded people oo adiga kula mida oo aad wax wada qabataan oo aad kadibna meel gaartaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo dad badan oo dhalinyaro waxay dhahaan niyo ganacsiga iyo hawlahaas ma nabartid waay mar walba uga hadashaa ilmaha maxay tahay ujeedada ama sirta ku jirta ilmaha maxay tahay waxay tahay sirta ilmaha ku jirta inaad fahantaan qofka generationka dambe maskaxda ka bedela ama generationka dambe qalbigooda daga waa qofka ma aragtay hantinaya ideyada soo socota waxa ugu badan oo la isku haysto oo laga rabo qofku inuu fahmana waxa waaye in aad ogsoonaato ilmaha adiga aan dhalnay in la rabo in qalbiga iyo maskaxda laga dago waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo aan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad xasuusiyo hadhihin may culimadu wax qabtaan hadhihin may ganacsatadu wax qabtaan adiga waaridaa tahay waxa tahay waxa suurtagal inaad waarid sugatood ilaahay awlaad ka sugayso karaankaaga intuu yaho tabartaadu tahay qabo waxaan weydiinaa dadku inay tagaan iskuulada oo ay mentorship sameeyaan waxaan maalin dhaweeyta tagay dugsiyada quraanka dugsi kamida anigoo drive gareynaya gaari Range Rover waxay igu tiri gabar yar oo markay daaqada iga fiirsanaysa gaariga aan parking ka dhiganayay adeer waad ka duwan tahay dadkii hore noogu imaan jiray waxaad wadataa suud iyo taay waxaad wadataa gaari Range Rover waxaan iri adeer laakiin waxa laga yaabaa macallinkaaga dugsiga inuu diinta iyo value-ga iyo aqliga iga fiican yahay laakiin inaysan dhaldhalaalku noloshu aysan ahayn gaariga aad wadato iyo dharka adiga wadato inta badan ilmaheena waxa maskaxda iyo aqliga looga dhaco waxa weeye in la tuso nolol dhaldhalaal ah oo shaydaanku u daah u yahay in badan oo annaga naga mid oo diin iyo dhaqaale iyo value haysanana ay suurtagal tahay in aan ka xishoono inaan ilmaheena tusno inay dhaqaale sameyn karaan in ay nolol fiican ku noolaan karaan laakiin sidii xoolihii oo kale aysan u noolaan waxaan rabaa walaalayaal inaan idinku soo gabagabeeyo haddaad macallin dugsi tahay
iyo haddaad waari tahay iyo haddaad ganacsato tahayba arrintaa waa arrin annagoo dhan noo taalla inaan ilmaheenna diin ahaan iyo dabci ahaan midna loo doorinin oo aysan noqonin ama aysan u ekaanin dad dugaaga aysan u ekaanin waxaana keliya oo looga bixi karaa qofka ugu horeeya oo maanta wax qaban kara ma ahan annaga dhan waa intiina wax fahansan oo masaajidka kuugu dhow ama santarka kuugu dhow ama dadka kula fahmi kara aad u baahan tahay inaad abuurtaan wax la yidhaahdo community ama aad abuurtaan dad isku fikrad ah oo u baahan in ay ka hortagaan waxyaabahaas qaarkood waxaan fiirsanayaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo some of the commentiga oo ay dadku dhiibeen ay leeyihiin culimmada ayaa waxay keenayaan masaajidda dadka noocaas oo kale ah culummadu dadka ay dadka hor keenayaan ha ka fiirsadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga baqaan maxaa yeelay markaad masjid qof keenta aaminsan ama wata message ka duwan ama value ka duwan ama ka xun nooca ay dadku aaminsan yihiin waxa aad barmoodgaraynaysaa oo aad dhabarka ka taabanaysaa oo aad qurxinaysaa wax aad iyo aad u xun waay annagoo dadka kala diimo ah baa waxaa suurtagala waxyaabaha qaarkood inaan ka midaysannahay laakiin waxa aanan ka midaysnayn oon aad iyo aad u kala fognahay waa in aad ka caddayn kartaa dadka hortooda in aadan dadkaan waxaan iyo waxaan la qabin oo aadan la mid ahayn walaalayaal sida uu shaydaanku ilaahay subxaana wa tacaala ama nebigu noo sheegay sala allahu alay wasalam inuu dadka maraayo xididadiisa ama maraayo bay fidnadu waxay maraysaa ama ay soo gelaysaa guryaheenna meelo fara badan oo aanan dareemi karin iyo in badan oo aysan ilmaheennu aysan iska celin karin aniga adigu cidda laga rabo inay u istaagto oo fahantahay tahay aad baan inii salaamaya walaalayaal asalaamu calaykum